madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta u furay kulan wadareed Golaha Wasiirada Jubbaland kaasi oo lagu dardargelinayo hiigsiga xukuumadda. Kulanka oo ah aqoon isweydaarsi looga hadli doono isku xirka howlaha dowladda ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalin ah kaasi oo ay bixinayaan aqoon-yahano isugu jira Somali iyo ajaanib. kulankani oo ay qayb ka ahayeen labada madaxweyne ku xigeen iyo Golaha Wasiirada Jubbaland ayaa lagu wadaa in ay wax badan ka faa'iidaan si ay xukuumadda ay ugu shaqeeyaan danaha Jubbaland iyo in la ilaaliyo wada shaqeynta guud ee hay'adaha kala duwan ee dowladda. madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo khudbadda furitaanka ka horjeediyay Golaha Wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kula dardaarmay in ay ka faa'iideystaan wasiirada aqoon isweydaarsigani. Waxsanahay maanta kulankan tabeelihiisu halkaa ku dhagan yahay oo Golaha Wasiiradu ay ku qaadanayaan aqoon isweydaarsi wax kala kororsi barashada maamul wanaaga iyo ajanda dheer oo 3 maalmood soconaya oo halkaan la inoogu soo diyaariyay aanan isleeyahay inaan u yeelano khubaro loo kordhiya aqoonta aan u baahannahay talada aan u baahannahay iyo waxa ay nagu kordhin karaan. wax la dhiso waxa ugu fiican waa bini'aadamka basharka in darbi la dhiso iyo guryo la dhiso in qofka la dhisaa ka sii macno roon waa fursad u baahan in qof waliba ka faa'iideysto waqtigeedana aan ilaalino. waxaan u mahadcelinayaa macadka iyo khubarada soo diyaariyay lecturada kule noogu timid nala wadaagaysa aan kala faa'iideysanayno loo faa'iideynaysa wixii aqoona ee u baahan inaan ku dhisno awoodda shakhsiyadeed ta dowladeed iyo ta mas-uuliyadeed intaba. mudan ayaa liya marwooyin golaha halkan fadhiya wasiiradu waa golihii fulinta ee maanta uu ku dhacay xilka iyo mas'uuliyadda Jubbaland iyagana ay saareed mas'uul ay ka ahaayeen. markay Jubbaland mas'uuliyadoodu saaran tahay waxay qayb ka yihiin mas'uuliyadda guud ee Soomaaliya waxay qayb ka sii noqonayaan midda guud ee inta inagu xeeran ilaa ay bini'aadanimada gaadho. Nuur Muxiidiin Cali telefishinka caalamiga RTN magaalada Kismaayo. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus. marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta. ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara. ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, hawlaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bangigaaga. adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. تعالوا واكو سلام سلام مرة أول عقتي بيلكي مانت لعقتها قيمة بنات أنا أنت السنة كنت براي ما أنت داد العقين أرجع يدافع معقول
معقول ما الحمد لله لا ما تسكلي يسر الله إذا سوعس أنا وشيء هلا حاجي وحوي لو أنا كنت توسي شافتان وكأنا ربان مرك حوجه يدلقا بار حلا نكون هاي ما كل ما هاي شايف أخبار فرحة لهم كوا هاي ترى عنا أخبار فرحة لهم كوا هاي يشك هذا إذا ما هو حرت ورا أنا أخبار فرحة لهم وش وكوجوليس سامتاينها waxaan ku guuleystay ina ooyaa iga soo marda ma burinayso bajaajaan ku guuleystay قول ما ana ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay dhagaan ku dhaga bajaaj lacagtan kale saaliga haya farxad ii sheeg anna waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah والله shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyado ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kala badan